runtii farxad ay noo tahay inaan idinkala soo qayb galno furitaanka kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaa kaloo runtii aadaan ugu faraxsanahay in baarlamaanka golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo dardar gelin doono iskaashiga uu la leeyahay baarlamaanada iyo wada shaqeyntooda. waxaan rajaynayaa insha Allah taala baqashadan waa tii ugu horeysay ka soo qayb galkan furitaanka kalfadhiga waa tii ugu horeysay aan ku tagno aan ku nimaadno Koonfur Galbeed. waxaan rajaynaynaa sidoo kale isteedida oo dhan aan tegi doono dowlad goboleedada oo dhan baarlamaanka uu tegi doona si aan u xoojino iskaashiga aan la leenahay dhammaan baarlamaanada ka jira dowlad goboleedada. aad iyo aad u mahadsantahay mar labaad ka mahadcelinayna soo dhaweynta magaca guddoonka baarlamaanka kan xildhibaanada iyo kan shacabka reer Koonfur Galbeed waxaan ku soo dhaweynaa magaalada Baydhabo. waxaan ku salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mudane guddoomiye farxada inoo tahay maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin inaad soo booqataan adiga wafdigaaga ugu soo booqataan magaalada Baydhabo. gaar ahaan laba farxadood ay maanta shacabka reer Koonfur Galbeed inoo tahay. oo midda koowaad inaan fursad u helno maanta inaad nagala soo qayb gashaan furitaankii kalfadhigii shanaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo beri oo isniina bishana 9 ay tahay noo furmi doona. sidoo kale reer Koonfur Galbeed shacabkeeda anoo magaceeda ku hadlayo waxaan kaloo kaaga hambaliyeynayaa isla markaasna farxad noo ah munaasabada labaad oo ah markii ugu horeysay guddoonka baarlamaanka inaan nasiib u yeelano wadanka gudihiisa gobol ka mid ah inuu soo booqdo markii inaan maanta magaalada Baydhabo inay noqotana meesha ugu horeysay safar ugu soo aad ku imaadana marka waa farxad ay noo tahay. marka mudane guddoomiye adiga wafdigaaga xildhibaanada waxaan idin leenahay